qisadeena maanta waa qiso aad u yaab badan oo aad u faa'iido badan. dadka arrimahan oo kala sameeyeen aaday u yar yihiin. waa nin iyo xaaskiisa iyo 3 gabar uu dhalay oo gaari saaran, gaarigana ka halaabay, wadada aga halaabay, magaalo aan u dhaweyn. haddaba ninkaas maxaa ku dhici doono? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونجوكتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبقية قصة عصر. قصة دينا ما انتوا قصة حقيقة مردونا دعضي وحي كدعضي ودنك السعودي كدعضي نينكي كدعضي أي شيخ أو أنك مقلي وشيخي قصة سيفي عن ودقيسو فإذا بدنا كل جسد ماني معلومة كامدة family oo ka kooban nin iyo xaaskiisa iyo 3 gabar u dhalay ayaa waxay go'aansadeen inay fasax iska aadaan magaalada, inay ka baxaan magaalo kale aadaan. way baxeen si u socdeen, gaarigoodii qaateen. dhaxbartinka markuu marayay gaariga ayuu ka halaabay. magaalo uma dhawo, taayirkii qarxay, wuu halaabay. waxay sameeyaan way garaween ayagoo highwayga dhaxbartinka taagan, gabdhihina gaariga ay ku jiraan, ninkiina banaanka taagan yahay ayaa gaari su'aad istaagay oo hal nin kaliya wato. ninkii uu yimid wuxuu yiri maxaa kugu dhacay? wuxuu yiri niyo gaariga iga halaabay. saan u fiiriyay gabdha meesha u saaran. ninku wuxuu ku yiri maqal, maadaama gabdha ay ku saaran yihiin gaarigan uu ka halaysan yahay, ani ma aqaan si gaari loo hagaajiyo. gaarigan kaligiyan watay, gaarigayga qaado, kaagan sii jooga. marka magaaladaada tagtid waxaa ii soo dirtaa towanka soo dir, towankan soo raaca si gaarigaaga adigana lagugu keeno. ninkii wuxuu yiri iska daa gaariga iska hayso. may wuxuu yiri wallahi ka haysan, aniga gabdha meesha kula jooga ceeb waay, gaariga ka hayso. ninkii waa yiri furihii ka qaatay, gabdhihiis iyo xaaskiisu gaariga kala saartay, magaaladiisu tagay. gaari wuxuu soo diray, towankii u soo diray. habeenkii la yimid, ninkii gaarigii haleysanaay waa joogay, towankii u yimid, waa israaceen. maalintii kala duhurkeeda ayay tageen, meeshii tageen. ninkii wuxuu ku yiri gaarigaaga waa kan furahayga si kaalena la cashay. wuxuu yiri may waa mahadsan tahay. wuxuu yiri aan wax ku sii, wuxuu yiri ilaah dartiisa ku sameeyo waxa kaaga ma baahni. marka wuxuu waayay telefoonka si ay isbaran si walaal ahaan, maadaama ilaah dartiisa uu caawiyo si walaal ahaan ilaah dartiisa walaal ahaan telefoonkaaga si telefoonka sidii ku kala wareegsadeen. marka waa wada xiriiri jireen. adiga xoogo markii la joogo ninkii nin kale uu hilmaamay, uu iska hilmaamay. sanooyin kadib, 5 sano 6 sano kadib ayuu soo xasuustay. ninkii ayuu wacay. ninkii xaaskiisa ka qabatay. السلام عليكم. وعليكم السلام. hebel ma jooga? waxay tiri hebel maxaa ka rataan? xabisaa geliseen, haddana ma anaga noo soo dhigateen. wuxuu yiri walaal isaas ma garanaysi wax loo xabisay wax u jiraan. markaas waxay ku tiri hebel deena lagu leeyahay, xabiskuna ku jira. xabiskii la geeyay, jeelkii la geeyay, jeelka meeshaas la geeyay. ninkii wuu yimid, jeelkii uu tagay. intuu soo jeelka tagayna 100,000 riyaal hor u qaatay. wuu tagay ninkii jeelka uu tagay. wuxuu yiri hebel agtiina ma ku xiran? markaas uu yiri ha diin ma lagu leeyahay, diin badan lagu leeyahay. wuxuu yiri 100,000 si asiina suuda. markaas uu yiri adiga magaca? wuxuu yiri magacayga iska dhaaf, faa'il khayr ku dhahduu ku weydiiyana waa kaase. ninkii xabiska ninkii u yeeray. wuxuu yiri kaalay qola nin faa'il khayra 100,000 ka bixiyay, kaalay waa ku fasaxahay. ninkii wuxuu yiri ninka ku keenay 100,000 yaa ma garanayo yiri. wuxuu ninka jazaahullah khayr aad u mahadsan yahay, la'aan lacagta lagu leeyahay waa 3 milyan 100,000 kaliya ma ahane. adaan su'aal ku weydiiyay ninka jeelka mas'uulka. wuxuu yiri dad ma jira lacag lagu leeyahay, lacag yar yar. markaas uu yiri ha qaar 5,000 lagu leeyahay, 7,000 10,000 dadkaas ii soo bixiyo dhah. ilaa 7 qofood ayuu lacagta u qaybiyay sidii ku bixiyay. ana 100,000 xabisaaga ma baxay, laakiin dad waxa jira ku xiran intaas 100,000 7 qofood ku sii daay, asigiina jeelku ku noqday. maalmo kadib ninkii wuxuu wacay saaxiibkiisii waay, haddana xaaskiisa ka qabatay. hebel aaway. waxay tahay hebel xabis uu ku jira, maxaa ka rabtaa? say wax u jiraan? wili ma soo deeynin? ma wili lama soo deeynin. ninkii wuu yaabay, xabisku tagay. nimay ayaa horataan ku imid, 100,000 ku dhiibay, hebel meesha ku jiraan ku dhahay soo daa. markaas uu yiri ha waa xasuustay. ninkii xabisku wuxuu yiri waxaan la yaabanahay, ma adaan kula yaaba mis asigaan la yaaba? adiga 100,000 keentay, magacaaga imaadan sheegin oo faa'il khayra tiri. asigiina markaan u yeeray 100,000 wuxuu yiri lacagta lagu leeyahay way ka badan tahay, lacagtiisa muusan qaadan, faamilkayga ha loo diro muusan dhihin. 7 qofood meesha ku xabisan ayuu ku fasaxay. marka waxaan la yaabanahay yiri ma adaan kula yaabayo subhanallah dhaha mis asiga la yaaba wanaagiis. markaas wuxuu ku yiri waayahay ninka meeqa lagu leeyahay?
وحول 6 مليون الأولى وحول ورقد من إسين كرتا نينكا إن 6 مليون الأولى ها هو ورقد وقول 6 مليون الأولى ninkii warqadii uu qaaday nin fiican oo xoolo lehna wuu ahay dad badan oo business leader waa yaqaan dadka business leader waa isu xeer dhigtaan uu tagay dadkii uu sheegay wuxuu nin dad nin waxa jiro miskiin oo 3 milyan u xiran 3 milyan wuu soo aruuriyay wuu keenay jeelka ninkii uu keenay wuxuu yiri 3 milyan waa tane magaciigan ha sheegin ninkan soo siida askariga meesha haysta ninkii oo xabiska ku jiro uu yiri wuxuu yiri kaale meeqa uu leeyahay 3 milyan waa tane orod bax markaas wuxuu yiri yaa keenay wuxuu yiri wax keenay iska daay faacil khayra keenay labadiina waa kala darantihiin 3 milyan qaado orod iska bax ninkii 3 milyan sidoo ku soo qaatay diintii ku bixiyay fahamilkiisu ku noqday nolol fiican oo ku nool yahay mana oga qofka ka bixiyay ninkii marka arinta sameeyay ayaa wuxuu aga sheekay sheekha aga sheekay ugu dambeyntii walaal qisada qisa aad u yaab badan dadka arrimahan oo kala sameeyay aad u yeelan waa dad marka hore u dhashtay karam u dhashtay waaye kadibna loogu daray diin iyo akhlaaq ugu darsan tahay waa ma dhici kartaa qof inaa wadada ku aragtid oo caawisid gaarigaaga aasiisid tiraado kale maadaama gabadha meesha uu saaray suusan ugu ceeboobin gabdhaha niyo ka xayse aniga meeshan aan sii jooga soo arrin la yaab lama ahan qisada marka faa'iido badan ku jirto qaar kamid ah idin sheega inta kalena idinka soo qor khayr Allah idin siiyo فائدة كوبات والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه حدا قف ولالك عاوسي كوب بشاريسو الله مالك الملك وحول بقى عندك هاي إنه كعاونا يا كوب بشاريسو فإذا ذا لبعد أرمركا سمينيس إلهي درتيسا أسميها أسمين قفك أجرنا أجيهشد أما وناك أجيهشد ها أسمين إسك إلالي وح إلهي درتيسا دا أسميسد إلهي أذينا وكو أبال مرنا الدون إي آخرابه فإذا سدحات dadka la caawinay way kala yihiin qof walba caawis u baahan yahay gaar ahaan hadaa aragtid gabdho ama caruur hadaa aragtid ama nin gabdhi caruur wato si gooni il gooni ku fiiri qofkaas oo kale wuxuu u baahan yahay in la karaameeyo la garab istaago lana wuxuu wadaa culays badan oo wada banaana aaga ma tagi karo walwalka iyo murugtu ku nool yahay qofkaas ilaahay kaliya oo hadaa ka furtid walwalka iyo murugu ku nool yahay إلهي أدينا وكاقانا والولد يمرون فإذا شناد دد عاوس أباهن هدا أركتid هدا أودين حتى انت كأودي تسمي انت كلنا هديك ما أودي ددك أسويدي اشفعوا تؤجروا حصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا قفك مركا وقفك لو ويديسد مقعا لو وصوصي أجر كيسا واهليسا هذه نواهي شيء تاكسو قادنا واهليسا مرك اشفعوا تؤجروا بخيلها نقولن وجهها استعمال هذا استعمال كلمة هذا استعمال شرفت هذا استعمال حولها استعمال تذكر كلامك عاوي فإذا لحد إيوه تنتظبان إيه تنسديدات إيه سقالات إيه توانات بو أديك عسكله صغر بخيلها نقولن إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير بارك الله فيكم ولا لي هنا كالأسي قد بيه وإنه جمعنا صوصوات إيه قصة عصب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله